Guurku waa muhiim sababtoo ah waa wax mideeya nin iyo xaaskiisa isla markaana ku bilowda qoys. Waxa uuna wataa barako. Maalmahan si kastaba qoysas badan ayaa burbura sababo jira awgeed, gaar ahaan isfahan waa labada qofood ku timaada. Dabcan waa inaysan sir kala qarsan lamaanaha isqaba, balse waxaa jira waxyaabo aan habboonayn inay ninkeeda u sheegto si walba ay isu jecel yihiin. Waxaan halkaa idinku soo gudbin doonaa 5 arrimood ee aysan ahayn inay haweeneydu ninkeeda u sheegto. Haddaba maxay yihiin 5tan arrimood? Soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Qodobka koowaad, ha kala hadlin inta nin aad soo shukaansatay xilliga gabarnimadaada. Waa inaadan saygaaga u sheegin amaba aad u faahfaahin inta nin sheeko kala dhaxaysay ka hor intaydan isguursan. Haddii aad arrimahaas kala hadasho una faahfaahiso isla markaana raggaasi ay yihiin rag isaga saaxiibo ah ama rag isaga ka horeeyo, waxaa laga yaabaa inuu kuu qaato qof xun inaad tahay adiga. Sidaas darteed haddii uu ku weydiiyo inta rag ee aad soo shukaansatay, intaad qosasho waxaad ku tiraahdaa aan iska dayno hadalkaas. Qodobka labaad, inaad ragga kala faalooto. Haddii su'aal lagaa weydiiyo nin, aad ha ugu faaloon. Ha dhihin waxyaabo saygaaga dareensiin kara inuusan qof fiican ahayn ama waxyaabo xumaan dareensiin kara. Ha ku oran waxaan jeclaan lahaa inaan guursado ninkaasi taajirka ah. Qodobka saddexaad, ha kala hadlin ninkaaga inaad ka heshay wiil aad asxaab tihiin ama dumaashigaaga. Dhammaanteen waynu ognahay in haddii aad xaas tahay aadan wax dan ah aadan ka lahayn wiil aad asxaab tihiin ama dumaashigaaga, balse waa halis inaad kala faalooto saygaaga sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu ninkaaga ka shakiyay dad aad asxaab tihiin ama qaraabo aad tihiin. Qodobka afraad, ha isku dayin oo ha ku oran waa necbahay hooyadaada iyo qoyskiinaba. Si walba aad u xanaaqsan tahay amaba aad u aragto inuu saygaaga iyaga la jiro, haddii aan isdabacad fahmaynin qoyska, saygaaga si degan ugu sheego si uu u fahmo waxyaabaha aad diidan tahay. Saygaaga ayaa kaa caawin kara inuu arrintan kaa xalliyo, waxayna taasi ka hortagi kartaa arrimo sababi lahaa dhibaatooyin hor leh. Qodobka shanaad, ha ku dhihin saygaaga inaad doonayso in qoyskiinu burburo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay dhibaato hor leh ay ka dhalato meesha. Maalinta aad saygaaga u sheegto inaadan doonayn in qoyskiina sii dhisnaado, marka oo muran idin dhex galo, waa maalinta ay sii badanayso dhibaatooyinka idin dhex taala. Dhibaato badan ayaa qoyskiina ku imaan kara, muran iyo isqabqabsi iyo is-aaminaad la'aan. Inaad furin ku hanjabto waxay ka dhigan tahay inaadan ku qanacsanayn guurka. Haddii aysan jirin dhibaato aad u weyn, waxaa fiican inay si degan loo xalliyo dhibaatadaasi. haddii aad intaan nala soo gaarto waxay ka dhigan tahay inaad muuqaalka dhamaysatay. Fadlan waxaa kaa codsanayaa inaad muuqaalka subscribe tiraahdo, siina shargeys asxaabtaada la wadaagto. Muuqaalkan intaasuu ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.